gabdhaha inta aysan qaangaarin waxay aad iyo aad u jecel yihiin aabahood, sidoo kale ayuu aabuhuna iyaga u jecel yahay. Wiilashuna waxay aad u jecel yihiin marka ay yaryar yihiin hooyadood, iyaduna sidaas si la mid ah ayay u jeceshahay. Haddaba waxaa cajiib ah oo la yaab leh isdhaafka caynkaas ah. Gabadha maadaama ay tahay dhadig, waxaa ku beeran oo ku tallaalan inay fahan iyo dhawaansho la yeelato labka, sida aabaheed inta ay yar tahay. Maadaama ay marka ay weynaato nin la wadaagi doonto nolosha, gabadha yari waxay aabaheed ka barataa kalgacalka, xanaanada iyo koolkoolinta. Sidoo kale waxay ka barataa waxa uu yahay nin ama lab. Taas waxaan ula jeedaa waxay daraasaysaa qaabka uu u fakaro, u hadlo, jacaylka u muujiyo, u sheekeeyo oo xanaano ugu muujiyo. Sidoo kale waxay barataa adaygiisa iyo kartidiisa. Baahi xoog leh ayay u qabtaa inay barato labnimada waxa ay tahay. Arrimaha ay aabaheed ka barato marka ay dhalato ilaa ay ka gaarayso dhowr iyo 10 sano ayaa ah kuwa ay u aayi doonto nolosheeda dambe, oo anfici doona qoysnimadeeda iyo qofnimadeeda iyo weliba hooyanimadeeda. Sidoo kale waxaa iyana la yaab ah in aabayaashu ay gabdhaha yaryar aad u jecel yihiin. Waxay ula hadlaan si wanaagsan oo dabacsan. Waxay u dhaqaaleeyaan si ka duwan sida ay wiilasha u dhaqaaleeyaan. Marka ay gabadhu soo gaarto 4 sano jir ama 3 jir, ayaa markaba waxaa abuurma inay si gaar ah aabaha isu jeclaysiiso oo xiriir dhow ula yeelato.